wararka laga helayo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya inuu socdo qorshe isku shaandhayn ah oo lagu sameynayo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ilxoogaala noo sheegeen waxaa la filayaa in xilalka laga qaado wasiirro muhiim ah halka golaha wasiirada lagu soo dari doono xubno cusub isku shaandhaynta miiska saaran ayaa la sheegay inay noqon doonto mid kooban oo ra'iisul wasaare Xamdi Cabdi Barre uu ku bedeli doono ku dhawaad 10 xubnood oo isugu jiro wasiir ku xigeenno iyo wasiir dawlayaal xogta la helay ayaa sheegaysa in wasiirada halista ugu jira xilka qaadista ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur 2 wasiirka awqaafta iyo diinta Mukhtaar Row Cali Abu Mansuur 3 waxaa kale oo wasiirada laga cabsi qaba in xilka laga qaado kamid ah wasiirka caafimaadka Cali Xaaji Aadan 4 wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka Firdawsi Cusmaan Dhoore gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe ayaa ku dhagan oo muddo dheer dadaal ugu jiray in xilka laga qaado wasiirada gaashaandhigga iyo diinta oo ku yimid kuna jooga rabitaanka madaxweyne Xasan Sheekh balse xilligan halis ku jira isku shaandhayntan ayaa la sheegay in ujeedada ugu weyn laga leeyahay ay tahay si loo dejiyo kacdoonka xildhibaanada mucaaradka ee wada mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda Xamse Cabdi Barre furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dib u dhac ku yimid ayaa furmaya sabtida soo socota ee 22 Febraayo iyadoo ay xildhibaano badan oo mucaarad ah isu diyaariyeen inay ridaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse macada in isku shaandhayntan ay ka hortagi doonto mooshinka dul saaran xukuumadda balse baarlamaanka 11aad ay horey mucaaradka ugu eedeeyeen inuu yahay fadhiid ay awood ku leedahay madaxtooyada ugu dambeyntii waxaa muddo dheer caado ahayd in sanadka ugu dambeeya muddaxileedka dawlad kasta ay soo baxaan mooshin lagu ridayo xukuumadda jirta magacaabista ra'iisul wasaare cusub iyo xiisado siyaasadeed oo jiitama ilaa xilliga doorashada oo xilligan hubanti la'aan ka jirto warwar mooshineed nama hayee warwarkii aanu shabaabna isaga dhicin lahayn dalkana dhaqaalihiisa wuxuun uga qaban lahayn amnigana u sugi lahayn siyaasadda arrimaha dibaddana u toosin lahayn ayaanu aad iyo aad uga aloosanahay aan qaato arrinta abaaraha dadka horta ka wacyigeliya isbeddelka cimiladana u raaciya warkiinu meel dheer buu gaadhay anigu mooshinada xogay waayaan soo joogo waxbaan ka aqaana warwar iyo cabsi badan arrintaas sidii cali khaliifku oran maayo cirka hadduu soo dubo meesha laga galan ka gelaya kowdha allah u naxariiste waxaanuna ku rajo weyna deegaanka iyo deegaanada deriska la'ah iyo dadka Soomaaliyeedba inuu nabad iyo badhaadhe iyo wanaag ku soo kordhiyo hortaniyo mooshinka meeshaan laga aqoon waa meesha la yiraahdo Somaliland doorasho la galaayo waa iska sugaysaa 5 sano mooshin baa jira aad u maqlimays taa wada haysa Sooma anigu mooshinada xogay waayaan soo joogo waxbaan ka aqaana warwar iyo cabsi badan arrintaas sidii cali khaliifku oran maayo cirka hadduu soo dubo meesha laga galan ka gelaya kowdha allah u naxariiste laakiin warwar mooshineed nama hayee warwarkii aanu shabaabna isaga dhicin lahayn dalkana dhaqaalihiisa wuxuun uga qaban lahayn amnigana u sugi lahayn siyaasadda arrimaha dibaddana u toosin lahayn ayaanu aad iyo aad uga aloosanahay